waqtigan la joogo geeska Afrika wuxuu marayaa marxalad isbedel oo taariikhi ah. Dal walba oo gobolka ku yaala wuxuu samaynayaa dhaqdhaqaaq dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed oo muuqda. Ethiopia oo weli ay ka jiraan dagaallo iyo khilaafyo qowmiyadeed ayaa haddana ku sii socota jid ay ku doonayso inay ku noqoto awood tamareed oo weyn. Dowladda Addis Ababa waxay la gashay Ruushka heshiis ku saabsan dhismaha warshad koronto oo ku shaqeysa tamarta nuclear-ka. Tallaabo muujinaysa in Ethiopia rabto inay cagta saarto dariiqa dalalka awoodda leh. Inkastoo ay weli ku jirto dhibaatooyin gudaha, haddana waxay fahamtay hal arrin oo muhiim ah. Horumar lama sugo, waa la sameeyaa. Dhanka kale, Kenya waxa ay noqotay xarun dhaqaale iyo maaliyadeed oo gobolka muhiim u ah. Nairobi waxaa laga dhisay bangiyo, shirkado tiknoolajiyadeed iyo xarumo caalami ah oo ganacsi. Dowladda Kenya waxay si xeel dheer u garatay in maalgashiga shisheeye uu imaan karo kaliya marka amniga iyo xasiloonida siyaasadeed la helo. Xitaa marka siyaasadda gudaha ay kacsan tahay, dhaqaaluhu ma istaago maadaama ay jirto nidaam difaacaya danaha guud. Eritrea oo muddo dheer go'doon ku jirta waxay bilowday inay albaabkeeda dib u furto, halka Suudaan inkastoo ay burbur ku jirto haddana ay isku dayayso inay dib ula midowdo beesha caalamka. Waxaa muuqata in darasyada Soomaaliya ay mid walba si tartiib u dhisayaan qorshe muuqda oo ku saabsan mustaqbalkooda, iyagoo kor u qaadaya wax soo saarka, xiriirka dibadda iyo qorshayaasha tamarta. Laakiin marka indhaha lagu soo celiyo Soomaaliya, waxaa muuqanaya sawir murugo leh. Dalku wuxuu u taagan yahay sidii qof waqtigu dhaafay oo aan garanayn meel uu u socdo. 40 sano u dambeysana Soomaaliya waxay ku mashquulsanayd cidda xukunta, cidda saxda ah iyo cidda xaq u leh magaca dowladnimo, halkii ay xoogga saari lahayd cidda wax u qabata dadka. Inta dalalka dariska ah ay dhisayeen warshado iyo xarumo tiknoolajiyadeed, Soomaaliya waxay ku jirtay muran doorasho, heshiis burburaya iyo dagaallo siyaasadeed oo aan wax natiijo lahayn. Dalalka dariska waxay ka hadlayaan koritaan dhaqaale, halka Soomaaliya ay weli ka hadlayso doorasho 40 sano kasta muran dhalaysa. Ma jirto hal qorshe qaran oo la isku raacsan yahay, mana jiro hal jiho oo loo wada socdo. Dowlad kasta oo timaada waxay ka bilowdaa eber. Qorshe walba wuxuu la dhintaa markii dowladdii ku horeysay ay tagto. Waxaa la joogaa xilli qaran kasta oo geeska Afrika uu leeyahay yoolal iyo qorshayaal fogfog, halka Soomaaliya aysan haysan xataa hal maalin oo go'aan midaysan ay ku fuliso. Ethiopia waxay leedahay istaraatiijiyad cad inay noqoto awood tamareed iyo mid difaac. Kenya waxay leedahay qorshe dhaqaale iyo furfurnaan caalami ah. Soomaaliyase waxay weli ku jirtaa qabiil, khilaaf iyo kalsooni darro. Xataa marka ay fursad u hesho inay ka faa'iideysto muranbadeedkeeda istaraatiijiga, waxaa lagu lumiyaa muran ku saabsan cidda siyaxaysa heshiisyada. Waxaa hubaala in dal aan ogeyn waxa uu leeyahay uu dhiibo kan og. Soomaaliya waxay u egtahay dal u dhiibtay darasyadeeda fursadihii ay lahayd. Ethiopia waxay dhisaysaa mustaqbalka. Kenya waxay dhisaysaa maalgashi, halka Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay cidda la eriyo iyo cidda soo laabanaysa. ku dirso baysi lacagahaaga oo si degdeg ah u helaan ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo ugu dhacaysa telefoonkooda gacanta sida EVC, SAD, Sahal, MTN iyo M-Pesa. Kala soo deg App Store-ka ama Play Store. Ma jiro dal loo horumarin karo marka dadkiisa ay isku mashquulsan yihiin isriix siyaasadeed iyo eedama aan dhammaad lahaynna ay dusha iskaga ridayaan. Haddana runta kale waa in Soomaaliya aysan gebi ahaanba fursado ka dhammaan. Dalkeenna wuxuu leeyahay xeeb dheer, kheyraad badan iyo dhalinyaro firfircoon oo haddii la mideeyo noqon kara awood muuqata. Waxaa kaliya maqan waa isku duubni iyo hoggaan dacada. Dal kasta oo kale wuxuu leeyahay caqabado, balse wuxuu leeyahay meel uu ku midaysan yahay. Ethiopia waxay leedahay qowmiyado kala duwan, laakiin marka ay timaado horumar waa talaabo ay ku midoobaan. Kenya waxay leedahay musuq iyo kala qaybsanaan, balse waxay og yihiin dowladnimadu inay tahay geed la wada hoos fadhiisto. Soomaaliyase qof walba wuxuu doonayaa inuu kaligiis go'o. Haddii ay xaaladdan sii socoto, Soomaaliya 10 sano ee soo socota waxay noqon doonaan kuwo darasyadeedu ay gaaraan himilooyin, halka ay weli Soomaaliyana ku mashquulsanaan doonto doorasho kale, muran kale iyo heshiis kale oo aan la jebin. Sida ay sheegeen WHO iyo UNICEF, adeegyada taranka casriga waxay u baahan yihiin ilaalin caafimaad. Marka la joogo Soomaaliya, Amore Specialist Hospital oo ku yaala magaalada Muqdisho, kana howlgalaan dhaqaatiir khibrad fog u leh, haysana qalab casri ah, rabbina kaashanayo, ayaa hormuud u ah ilaalinta taranka. Waxa ayna ku guuleysteen in lamaanayaal fara badan ay ka gudbaan caqabada ilmo la'aanta. Dalalka kale waxay gaari doonaan meel sare, Soomaaliyase waxay sii ahaan doontaa meel lagu murmo. Ugu dambeyntiina waxaa dhab ah in waqtigu leeyahay hal qaanuun oo aan isbedelin. Ciddii aan socon waa la dhaafayaa. Geeskana wuu socdaa, isbedelkuna wuu socdaa, balse Soomaaliya waxay u muuqataa dal joogsaday oo aan garanayn meel uu socdo. Si taa looga baxo, waa in dalku u bartaa in dowladnimadu aysan ahayn cidda kursiga haysata, balse ay tahay
cidda ku hoggaamisa jidka mustaqbalka. Haddii aan maanta la helin jiho qarannimo oo midaysan, berri waxaa suuragal ah in Geeska Afrika uu noqdo mid Soomaaliya aan qayb ka ahayn. Dalkeennu wuxuu leeyahay taariikh, dad iyo deegaan, laakiin jihada ayaa maqan. Waqtigu wuu socdaa, dalalka kalena way socdaan. Halkaana waxaa ka dhalanaysa hal su'aal: Soomaaliya ma garatay in la joogo waqti ay tahay in ay horay u socoto si aan looga tegin?